waxaa dhulka ku dhacay dhibic yar oo malab ah. Kadibna waxaa soo agmartay dhuuro yar ama quraansho. Way dhadhamisay malabkii. Haddana waxay isku dayday in ay ka tagto, laakiin dhadhanka malabka aad ayuu u macaan yahay. Way ku soo laabatay, haddana way ku ceshatay dhadhankii oo mar labaad ayay dhadhamisay. Laakiin waxay dareentay inaysan ugu kaaftoomaynin dhadhamiskaas oo keliya. Waxayna go'aansatay inay dhex gasho malabka dhexdiisa si ay ugu raaxaysato ayna wax badan u cunto. Laakiin dhuuradii markii ay dhex gashay malabkii way raaxaysatay, laakiin waxay awoodi weysay in ay ka soo dhex baxdo malabka dhexdiisa. Way awoodi weysay inay dhaqaaqdo. Malabkii ayaa ku engegay ama ku qalalay. Dhuuradii waxay awoodi weysay ama ay kari weysay in ay ka soo dhex baxdo. Waxay noqotay xaaladaas ayay ku sugnaatay ilaa ay ka dhimanayso. Qisadan waxaan u soo qaadanay tusaale cajiib ah. Adduunyada maahan waa ilaa dhibic malab oo weyn oo kale. Qofkii uu kaaftoomaa dhadhamis yar kadibna ka tagaa wuu badbaadayaa. Balse qofkii dhexgalaa macmacaanka adduunka wuu ku halaagsamayaa, waxaana jiidan doono macmacaankaas. Wakhti uu u malaynayo in uu raaxaysanayo, laakiin ciqaab dambeedkiisa waxay ku noqon doontaa meel uu ka dhex bixi waynayo, kadibna uu ku dhegi doonto ay la tagi doonto. Allaha naga dhigo kuwii ugu kaaftooma adduunka wax yar, aakhiradoodana hamigooda saara.